day inaad ka jawaabto waa hal xiraale. Cabdi waxaa lagu xiray qol sagxad wasaqaysan lehna daaqad kaliya. Daaqada ayaa aad ugu sareysa inuu gaaro. Waxa kaliya ee qolka ku jiro waa masharafad ama badiil. Ma awoodo inuu helo wax cunto ah ama biyo ah. Wuxuu haystaa 2 maalmood oo kaga baxsado ama wuu dhiman doonaa. Ma qodi karo dhulka maxaa yeelay waxay ku qaadan doontaa wax ka badan 2 maalmood. Sidee Cabdi ugu baxsan doonaa qolka? Isku day inaad ka jawaabto ka hor inta aanan jawaabta ku siinin. Haddii aad u baahan tahay waqti, jooji muuqaalka kadibna ka fikir jawaab. waxaa sugtaba waa jawaabta. Cabdi waa inuu adeegsadaa masharafada si uu meel isugu keeno qashinka daadsan daaqada hoosteeda kadibna kor u fuulo ugu baxsado qolka. Isku day inaad ka jawaabto waa hal xiraale. Ilhaan iyo Ismahaan waxay u wada baxeen magaalada. Waxay dalbadeen cabitaan isku mid ah. Ismahaan runtii aad bay u oomaneyd oo waxay dhameysay 5 markii ay ku qaadatay Ilhaan inay dhameysato mid. Balse nasiib daro cabitaanada ayaa la sumeeyay laakiin Ilhaan oo kaliya ayaa dhimatay. Sidee ku dhacday maadaama Ilhaan hal cabitaan kaliya ee cabtay, Ismahaana 5 cabitaan ay ka tuurtay? Haddaba ka fikir jawaabta. Haddii waqti aad u baahato, jooji muuqaalka. Mahadsanid. jawaabta. Sunta ayaa ku jirtay barafka. Ilhaan wuxuu lahaa waqti uu ku dhalaalo oo uu sunta ugu melmo, laakiin Ismahaan waqti ma aysan siinin oo barafku ku dhalaalo maadaama oo ay aad u oomaneed. Mar kale aan ku celiyo jawaabta waa sunta ayaa ku jirtay barafka. Ilhaan wuxuu lahaa waqti uu ku dhalaalo oo uu sunta ku melmo, laakiin Ismahaan waqti ma aysan siinin oo barafku ku dhalaalo maadaama oo ay aad u oomaneed. Isku day inaad ka jawaabto waa hal xiraalihii saddexaad. Meydka haweeney dhimatay ayaa laga helay qaybta hoose ee dhismo dabaq ah. Waxay u muuqatay inay isdishay iyadoo ka booday mid ka mid ah dabaqa. Markuu dambi baaruhu yimid, wuxuu aaday dabaqa koowaad ee dhismaha. Wuxuu furay daaqada xidhan. Wuxuu u tuuray qadaadiic dhulka. Wuxuu sii aaday dabaqa labaad oo wuxuu sameeyay isla sidii dabaqa koowaad uu ku sameeyay oo ahayd inuu daaqada furo kadibna qadaadiic shilimaan uu daaqada ka tuuro. Wuu sii waday tan ilaa inta uu gaarayo dabaqa sare ee dhismaha. Markuu soo laabtay, wuxuu sheegay in ay ahayd dil uusan ahayn isdilid. Sidee buu taasi ku ogaaday? haddaba si waqti aad u heshid jawaabta, muuqaalka istaaji kadibna ka fikir jawaab. jawaab way ka boodi weyday sagxadaha midkood maxaa yeelay markii dambi baaruhu uu aaday dabaq kasta daaqadaha oo dhami way xirnaayeen. si kale dambi baaruhu dabaq kasta marka uu tago isaga ayaa furay daaqada. inta ayaan ku joojinayaa. intaa kuma eka ee qaybo badan ayaa soo socda. fadlan la wadaag asxaabtaada haddii aad ka heshay. mahadsanid. Chop, 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 chop.